qof xikmad badan waxa loo yaqaan xikmadu kuma xidhna daada shaqana kuma laha waxaad la kulmi kartaa qof 60 jir ah oo ku marin habaabiya sidoo kalena waxaad la kulmi kartaa qof aad kaaga daayar oo ku caawiya haddii aanay xikmadi jiri lahayn dhammaan ficiladeenu waxay noqon lahaayeen qaar ku salaysan waxa aynu damacno waxaynu raaci lahayn dareenadeena iyo hawadeena inagoon ka fikireen cawaaqibka ka dhalan kara ama dhibaatada ay ku sababi karto nafaheena iyo nafaha dadka kaleba hal kelmad oo xikmad ah oo aad ka heshay qof xikmad badani waxay ka fiican tahay sanado badan oo aad khibrad yeelato hal kelmad oo aynu ka helno qof bilaa xikmad ahina waxa laga yaabaa inay nagu hogaamiso inaynu qaadano go'aano aynu mar dambe qoomamayno nolosheena haddii ay jiraan waxaynu in unu baahanahay si aynu ugu noolaano nolol fiican oo farxad leh waa xikmadda sida loo noqdo qof xikmad badan weligaa ha qaadan go'aan degdeg ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee xikmaddu waa inaanad qaadan go'aan degdeg ah tusaale ahaan haddii shirkadii shaqo kuugu deeqday isla markaana laga rabo inaad jawaab ku celiso 3 cisho gudahood waa inaad jawaabta ku celisaa maalinta saddexaad oo kaliya xataa haddii aad horeba u garanaysay waxa aad rabto haddii aad rabto inaad qof u dirto email aad u muhiim ah oo saameyn doona noloshaada qor oo kaliya emailka balse ha dirin daqiiqada kadib waxaad heli doontaa fikrado cusub oo kugu soo dhacaya kuwaasoo kaa caawin kara inaad dirto email fiican haddaynu soo koobno qodobkan waa inaanad go'aan iyo ficil qaadan ilaa inta aad waqti haysato xataa haddaad si fiican u garanayso waxaad samaynayso ficil ha samayn ilaa inta aad dhammaystirayso oo aad helayso xogta kaa maqan waxaa suurtagal ah inaad hore u waajahday xaalad aad qof aad saaxiibtiin u sheegtay dhibaato ku haysatay intaa kadibna uu hore kaa siiyey xal isagoon sawir buuxa ka haysan siday dhibaatadu u jirto ka hor inta aanad qof tala siin ama se aanad samayn ficil ugu horreyn isku day inaad sawir buuxa ka haysato siday waxu jiraan oo aad si fiican u fahanto xaaladda fahan sababta ka dambaysa wax kasta haddii aad aragto ruux qof kasta ku qaylinaya waxaa suurtagal ah inay haysato dhibaato aanu la tacaali karin haddii aad aragto qof jikaar badan waxaa suurtagal ah inuu ka cadhaysan yahay oo ay cadhadiisa sababtay waxyaabo uu rabay nolosha oo aanu gaadhin haddii aad aragto qof ku nacabna waxaa suurtagal ah inuu kaa cabsanayo si aad u noqoto qof xikmad badan waa inaad yeelataa aqoon fiican oo kuu saamaxaysa waxyaabaha iyo sababaha ka dambeeya habdhaqanka dadka inaad urursato cilmiga noocan oo kale ahi waxay kuu saamaxaysaa inaad samayso ficil ka duwan ficilkaad samayn lahayd haddii aanad xogtan ogaan lahayn wax akhri oo ku dhaqan haddii aad wax badan akhrido oo aanad ku dhaqmin waxaad noqon doontaa qof wax akhriska iska jecel balse aanay waxaasi saamayn ku lahayn noloshiisa haddii aad ficil samayso adigoon wax badan akhrina waxaad noqon doontaa qof jaahil ah haddii aad wax badan akhrido oo aad ku dhaqantana waxaad noqon doontaa qof xikmad iyo caqli badan xikmaddu waxay ka kooban tahay cilmi iyo khibrad la isku daray labadaasina waa labada aad u baahan tahay si aad u noqoto qof caaqil ah oo xikmad badan haddii aad rabto inaad noqoto qof xikmad badan talada ugu fiican ee ku hayaa waxay tahay akhri oo ku dhaqan waxa aad barato wax u fiirso ma aha inaad tiraa waxaan tijaabinayaa korontada si aan u ogaado khatarta ay leedahay sababtoo ah isla xogtan waxaad ka heli kartaa qof kuu sheegay ama aad aragtay isagoo koronta ku dhageyso haddii inaad khibrad yeelataa kaa caawinayso inaad noqoto qof xikmad badan sidoo kalena inaad wax ka barato khibradda dadka kale waxay kaa dhigaysaa mid intaa ka sii xikmad badan ha iska raacin dadka inta ugu badan dadkaad la kulmi doontaa ma aha dad xikmad badan intooda badan waxay u hoggaansamaan waxay dareenadoodu faraan iyagoon xog badan haysan haddii aad rabto inaad noqoto qof xikmad badan waa inaanad samayn waxa dadka badankoodu sameeyaan inaad buuqa israacisaa weligaa kaa dhigi mayso qof caqli iyo xikmad badan waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey haddii aad ka heshay like saar haddii aad ku cusub tahay channelkan taabo subscribe fikirkaagana noogu soo gudba qaybta commentiga sidoo kalena halkan ka daawo muuqaaladii ugu dambeeyey waa inoo kulankeena xigay insha Allah nabaday